laba nin isla shaqaysanaysay oo isku hayb muddo 10 sano isla shaqaysanaysay lacaga ay kala qaateen ayuuna u xiran yahay aawadeed nin kamid ah ina daahir awees waaye nin kamidana macalinka abto u ahaa markay ninkaas isqabsadeen xoolo adduunyo isku qabsadeen ayay nimankii ina daahir awees ayay u dacwoodeen walaayada islaamka haddii ay u dacwoodeen ninkii waa la wacay adoo adtigiyaa la wacay cabdikariim bilaal waxaa la yidhi arrinkaana saameesha yaalla bal ka waran wuxuu yidhi bal aniga ha lay soo daayo arrinta nimankaas aniga ha lay keeno haddii loo keenay arrinkii nimankii arrinkoodii waa xalli waaye aabbahay markuu xalli waayey waa lagu kala tegey haddii lagu kala tegey muddo kadib aabbahayaa laga wacay meeshii shabeellaha hoosaa laga wacay waxaa la yidhi arrinkaad shalay gashay oo garteeda gashay maxaa u soo celi weysay ma soo celinin waxba kama dhigan hadda meeshaas aad gelaysaa ha la yidhi xabsigaas aad gelay ama lacagtiyaa lagaa rabaa aabbahay $120,000 uu xiran yahay ninkii lacagta qabana hadda cir iyo dhul meeshuu raadkiisa dhigay qof bini aadan oo taqaana ma leh intaan waxaan u rajaynaynaa aan isku daba taagnayn ama xal heshiin ama dadka la xashiin ama lacag aruurisiin 8 bilood ilaa hadda waxaan soo qabanay ma jiro waxaan anaga damacnay inaan dadka muslimiinta ah dhibaatadaas aan la wadaagno aabbahayo 70 ilaa 75 sano jira 8 biloodna meeshaas ku xiran bishii ramadaankana caafimaad ugu dambeysay waxaan dadka islaamka ka codsanaynaa in ay arrinkaas ay wax naga kaalmeeyaan ay aabbahayna xornimadiisa ay dib noogu soo celiyaan lacagtaas oo aabbahay u xiran yahayna ay naga bixiyaan